aniga magacayga waxaa la lahaa Xamse Faarax Ana oo ku dhashay degmada Xamarweyne gaar ahaan xaafadda Aweyska. ما شاء الله subaxii horta waa soo kacnaa salaada subax salaada markii inta aan la gelin aan kacnaa waa qaweysanaa ilaahay wajigiisa aadna ilaahaygeena soo barinaa inuu wax khayr qabo ilaahay noo saalo shaqada shaqo ka fiican ilaahay noo saalo kadib markii guriga uu soo laabto dharkii oo macnaha shaqada loogu talagalay aan xirtaa waa soo baxaa xeebtii aan aadaa qalabkii aan xirxiraa markii la xirxiro matoorkii wixii dhan la iska jaagareena bensiinkii wixii iyo raashin yar oo macnaha oo inta waqtiga laga gaarayo aan caloosh ku sii celino aan sii qaadanaa ma sha Allah badiya aadna waa soo kulmaysanaa qalabkeena wixina wallahi shaqadan waxaan bilaabay aniga 18 jiraan ahay anoo 7 sano jiro aan shaqo bilaabay ma sha Allah 7 sano marka aan jiro quraanka waa dhimay waalidiinteedu ay igu dalaadeen ajri xasanaad Allah ka siiyo teeda kale 7 sano marka aan jiro anoo rabo iskool inaan galo waalidiintii dib iyo wax ku soo fulmay iyo mashaakil marka ani waxaan maadaama odagii oo jirtay oo maamadeen wax ay qaban karin waxaan go'aan ku gaar waalidiinteeda inaan meel ka soo saaro waxbarasho waqtigii ilaahay ka dhigo adoo weyn buu bari kartaa ma sha Allah waxbarashada ceeb ma ahan balse macnaa walaalay yar si oo korilaay falkiisa agale aabo jirina gurigana ana weyn ma sha Allah maanta aabay ina garab qabta ana leeyahay baahan yahay taas aaweedaan ani shaqada kulmeystada u gali hadduu ilaahay noo soo fududeeyo waqti ilaahay uu ku soo fududeena waqtina siib horta ilaahay adoonkiisa si oo arsaqa marka anagana waxaa ku noolahay bada city agalna maalin taw malaa iskeenay maalin hal malaa keenay maalin waaba soo waanaysa alxamdulillah maalin shidaal lagu qoraa maalin adaa macnaa wax zaa'id helay wax oo nafci ah maalin adaa lafaaga wax loo soo raacana macnaa hadan waxaa basi jecelnaa anaga shaqada shaqo fiican diin oo siinaa ku shaqeysanaa hadii shaqadeeda aan ku shaqeysanay saas iyadoo taa ma sha Allah waa ku qanacsanahay anaga waa ku shaqeysanaa waana ku iimaan qabnaa بسم الله فيها ما شاء الله انت بدأ عن كجور اني مدة كو 10 سنة عم بدك شقينويا طبعا كاستنا معناه waxyaabo caqabad iyo waxyaabo mucjiso aan aragnay waa jira maalmaha kamid ah xataa noo dhacay doonta inoo macnaa shaaga yaxaasa oo kiseesay ma sha Allah yaxaaskii oo macnaa anaga aan isku dayn dad oo baayaasana anaga yaxaaskii aan isku dayn inaan dawano yaxaaskii marka aan dawani oo macnaa doontii arabni inaan soo saarno wax dhintay oo iska dhig markii doonta aan soo saarno anoo noo soo weeray xib inoo cunita ay tagtay sheekada doontii aan ka wada boodni al dawaas doontii yaxaaskii oo fuulaya kor mar qalabkii ku fuul mindiya ku fuusha jilaawa fuul qalabkii dhanoo soo firdhi anaga yaa meesha nafsadeena khatar iyo halis ku gashay ma sha Allah ilaahay doonayo soo badbaadi taasa ilaahay maad iska leh iyo waxyaabo kale macnaa aniga badda oo si socono oo yiirkii doonta noo gadi oo mudahal bari oo macnaa dawaal aasi dawaaleen dad kale oo walaaleen kulmeeysta kale ah oo na heleen oo anaga iyo macnaa tacbaankiina ilaahay xaqiis la ka soconaa ma yani maalintaas horta caab macnaa dhimashaab isku qeyba diirunta laga hadlo والله حاجبي ما زائل وحياي معناه ما دام بدي هيك احسن تاي او معناه سيسوي الى هذا عم بدي جني حتى انك ايماني هالملايا الحمد لله الهكم باذننا halkii mala bensiinkii wiciyoona qabtay hadda waxaan isku dayaa sidii kawaanka aan goli lahayn malaayana mid saaxiibtay aad qaatay malaaygaas marka aan doonayaa inuu macnaa alyoomkay iyo wixii beledka aan goli lahaa ka dhaxsado dawladda waxaan jeclaan lahaa inay naga caawiso dhanta macnaa oo qalabka dhanka oo motorada kulli waxaas dhan iyo dhanka oo macnaa nabad sugideena anaga dad oo waxa iska jiro meesha iska heesto iska joogo oo macnaa
mar baad kaa qaadanaya mar waxa adigii oo badda kusoo nooti oo lagu soo waxyeela haddii baad lagu sii dar maxaa sameynay dantaa kugu qasbay nin qori wato ma ku aadi kartid laakiin meesha haddii oo anaga oo nol sameeyo oo macnaha aaminkeen iyo wixiina la sugo ya maasha allah alxamdulilah saasna waa kasii jeclaalaya dowladda haddiina uu sii caawiso laakiin ebel soo aay hadda waa kusii duwan yahay maasha allah hadda ciidan waxaa la keena oo sharaf leh oo macnaha oo wixii anaga u garano oo kaliya naga qaataan mee kuwii hore waa kasii fiican yihiin maasha allah alxamdulilah ilaahana taas maanta iska leh والله أنا مستقبل كيغا waxaa rajeynayaa horta haddii runta aan ka hadlo oo bimacnaa niyadeeda ilaah oo ii yeelo inaan teeda koo waalidiinteeda iyo aniga nafsad ahaanteeda heer aan isgaarsiiyo ya kadib macnaa meel aan ku harsado ama guri ani aan leeyahay oo beedkayga ah oo berley ninkira keen iyo wax keen oo lagu xujeynani aan rajeynaya inaan dhisto oon ka dhisto anoo badda ka shaqeynaya leh insha allah ani maadaama waxaan bari waayo walaalahayga iskoolaa geliyey bishii anaa ka dhiibo dugsiga wada dhigtaan maasha allah beri كمان نفس الدودة وحتري مستقبل كذا دنبه أنا وعرجنا مستقبل كي إنه معنا ساينسي كرو ناخذ إن شاء الله ولا مستقبل كودن كي وحرجنا إنه ساينسي كذا ما شاء الله ودن كذا ونوصيف كرمويا شغلي وكلا سعتها مستقبل ودن كانوا حرجنا سيارة يسي كذا إنه معنا أو ناخذه hebel badan oo laga dambeeyo ay oo magac leh oo sharaf leh oo qiimo iyo qaali leh haddana waa naqanaa haddii oo laba oo dadka dhan oo walaalaha ee hal mid ay wada naqdaan laakiin haddii la kala soo jeesto wadanka wax oo toosa ma laakiin hadda waxaa macnaa ilaahay waxaan ka barinaynaa inuu dadkii midoobay ilaahay naga dhigo